jaaliyadda gobolka Salel ee ku dhaqan dalka Denmark ayaa dakhli cageed soo gaarsiiyay mashruuca dhismaha masaajidka jaamaca ee magaalada Chidi. Deeqdan maaliyadeed oo cadadkeedu dhanaa $1,000 Mareykanka ah ayaa jaaliyadda u soo wakiilatay anigoo ah wariye Maxamed Cawaale Daahir isla markaana guddoonsiiyay guddoomiyaha guddida dhismaha masaajidka magaalada Chidi Xildhibaan Axmed Migel Ciltire. kadib guddoonkii deeqdan maaliyadeed oo ka timiday walaalaha gobolka Salel ee degan dalka Denmark ee qaaradda Yurub ayaa waxaa ka mahad celiyay mudane Xildhibaan Axmed Migel Ciltire oo laga soo doortay deegaanka Chidi isla markaana ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sayla. sidoo kale Xildhibaan Axmed Migel Ciltire oo ka wakiila guddida gacanta ku haysta dhismaha masaajidkaasi ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa hal anigoo ah xildhibaanka deegaankan Chidi waxaan halkan ka guddoomay $1,000 oo la noo soo dirtay jaaliyadda dibadda jirta Denmark ayaa noo soo dirtay taasoo noogu deeqeen masaajid aanan lahayn ayay noogu soo deeqeen iyo kun hore lacagta aan hayo waa $2,000 kun kale waxaa noo soo diray gabdho jooga Mareykanka ayaa noo soo diray jasaakumullah khayr kun kaana waxaan noo soo diray jaaliyadda Denmark waxaan ka guddoomay Maxamed Cawaale Daahir oo ah ninka hadii jeer gacan naga siiya xagga warsgaarsiinta gacan naga siiya wallahi hadii jeer anagu aan adeegsano ayaan ka guddoomay oo ka soo qaaday loo yacdo halkan ayuu keenay halkan aan joogo waa iskuulkii Chidi ma shaqeeyo malaha sidii buu xiran yahay sidii ayuu xiran yahay Somaliland oo la dabaqnay waxa kaliya la anahay waa kuraasidii waa labada maqsin eedarkaysan haddana xiran xaggana waan ka quusanay xagga Djibouti kun jeer baan la hadalay waxbaan soo dinayna badaan waa kuraasidaan siinayna badaan qaar wallahi kuwa jaaliyaddu dibadda jiray habla waxay naga yiraahdeen macallimiinta anaga bixinayna macallinkii waxba ka sokeeyay waxay ubadku ku fariisanay waxaan codsanaynaa ninna waa nin biirile ninna waa nin baahan oo lacaba ciisana ma gaari karo jaaliyadda ciise dibadda jirta ma gaari karto deegaanka ciise oo dhan wax ma qaban karto haddana waa inay kala horeyso biiri iyo meesha aan lahayn islaanti madii uu ka dhintay iyo tii muduc ka halaabay haddii isku hin noqdaan waa dhibteeda leedahay nasiib darrada inagana haysataa cid waliba markay inala hadashay qof bini aadamood arag oo qoon marka lacag loo diro say doonta yeelas magaalada Chidi oo ka tirsan degmada Sayla ayaa horay u deganeyd goob aanan lahayn adeeg bulsho sida goob caafimaad goob biyood iyo goob waxbarasho taasoo keentay inay magaaladu ka guurto goobtaasi muddo sanad laga joogo halkaasoo ay deganeyd intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye ee saameeyay wadankii Soomaaliya la isku oran jiray una guurto halkii ay ahaan jirtay magaalada Chidi 30 sano ka hor waa kan Xildhibaan Axmed Migel Ciltire oo ka waramaya guuritaankii magaalada Chidi iyo waxyaabihii sababay guuritaanka magaaladaasi magaalada imka aad arkaysan joogno waa magaaladii Chidi marka maxay uga guurtay way guureen dadkii waxay u guureen Chididii hore tan waxay degeen dagaalkii sokeeye ka bacdi ayay tan degeen maxaa dadkan abaar kuma dhicin culmo ka haynin maxay uga guureen oo uga tageen tii kale u tageen waxaan heli doonaa oo sheegi doonaa marka aan tagno magaaladii kale waxay noo jirtaa imika waa 5 kilomitir baan soo lugaynaa 5 kilomitirna waan soo lugaynaa halkaas dadku ka guuro ma ay helin wax maxay ahayd gacan qabta haddii hay'ad tahay haddii ay tahay dawladda Somaliland haddii tahay cidna gacan qabatina ma jiro balse dawladda Somaliland kolka halkan nagu soo marto waxa la oran jiray guura taga Chididii hore marka ba wixii walba leeyni qabanaya ayaa dadka lagu waanin jiray in badan ma suuro gelin Djibouti sidoo kale
ونقول سمر هالكن هي أديرو جبتيانا ونقول سمر وحال نقول يعني إن الجورو ويجورين دتكي من جاري كرستا من أور كررتا من أقلدي وكوا وحبل جم قاعد magaalada Chidi oo leh deegaan aad u tiro badan oo maguuraana ayaan ilaa haatan salka u dhigin adeegyadii bulsho ee halbowlaha u ahaa magaaladaasi mashruuca dhismaha masaajidka magaalada Chidi oo muddo badan dayacna ayaa qurba joogta gobolka Salal muddo kooban kaga soo jawaabeen kadib baaqeeladana oo masaajidkaasi dhowr bilood ka hor ay saxaafadu baahisay maxamed cawaala daahir xariir.net sayla